بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أخيارتي دمان وإذن سلام يا وافاينكي قلمدوك ومانتي إذن له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتينا ومدى الصوماليات ميلو البعيد شوغان دلي دبد والسلام يا سلام كدب وأيضا عندما ضد كهد لاي سوشيال ميديا وحن أركا يودها حسن الشيخ وحنوسيه قار وهيب اللي هو بدنتبو بسم الله dhimashada waa xaq waa mid la dhimanayo waqti kasta kullu nafsin daa'itul mawt qof walbana waqtigiisa ayuu dhimanayaa cidna kama celi karto waqtiga aad dhimanaysa haddii caleentaada soo go'do waad dhimanaysaa laakiin waxaan idin dhihi lahaa waxaa fiican in habaarka iyo laska daayo oo danaha Soomaaliyeed yacni in horumar laga sameeyo madaxweynihii shalay la doortay maantana micnaha aad habaar la dul taagnaan meeshii aad idinka dhihi leedeen ilaahay ha ku waafajiyo xaqa oo sida ummadda Soomaaliyeed u horumari lahayd in idinka la soo taagnaataan habaar iyo waxa aan loo joogin waa wax aad loogu falxumo badan waxaan meeshan leeyahay ummadda Soomaaliyeed inay u duceeyaan madaxweynaha sida uu xaqa ilaahay u tusiyo oo dadka Soomaaliyeed u horumarsiin lahaa oo dalka iyo dadkaba wax u qaban lahaa taas ayaan jeclahay inaan ummadda Soomaaliyeed ku baraarujiyo walaalahayga Soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxweynaha caafimaadkiisa maanta ahaanteeda waxaan idin leeyahay aad iyo aad buu u fiican yahay maasha Allah boqolkiiba boqol uu fiican yahay wana shaqadiisana uu bilaabayaa insha Allah waxaan idin leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto inay yacni waxyaabaha macnaha oo aan u fiicneen bulshada ama aan u fiicneen akhlaaqiyiin xataa inay macnaha qofkiiyo aan dhiman in la dhaho wuu dhintay wuu yeelay waxaas waa wax laga fiican yahay ummaday ka jooga waxyaabaha qaldan mid labaad adduunka way jirtaa dad macaarid way jiraan maxaafidna wuu jiraa waxa waaye dadku wax waa la mucaaradaa waxna waa la taageeraa isa kaa badanin baashu macaaradka sana kaa yaraanin baalkii la yiraahdo marka inaad waxyaabaha aad rabtaan iskaga hadashaan waa wax laga fiican yahay madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay caafimaad saamaan ku rajeynayaa madaxweyne waxa lagu doortay ummadda Soomaaliyeed oo anaga aan kugu hambalyeynay aan habeen iyo maalinba duca aan u wadnay waa inaad dalkan Soomaaliyeed oo dib u dhaca waayihii dambe dhan nagu dhacday inaad dalalka kaleento wixii ay gaareen horumar anagana aan ka daba tagno aan gaarno anaga aan kusoo kornay xaalado adag oo yacni daruuf iyo dhibaato iyo dagaal iyo noloshii la soo maray xasuus waxaa nagu tahay wallaahi wax laga sheekay kara maanta ma ahan waxaa loo laabad in micnaha arrinkaas aan ka gudubna ayaan maanta madaxweyne ku dooranay oo ummadda Soomaaliyeed ay kugu baroordiiqeen ama ay horumarkaasi ay kula jeclaayeen ayaa amigu u ahaa midaas anayna weli kugu rajaweyna inaad noo sameey doonto oo aan ka daba tagi doona dalalka horumaray oo kaleenta inaan gaarno insha Allah biidnillaahi alkariim sanooyinka soo socdana insha Allah biidnillaahi alkariim amarka ilaahay baa wax walba ku dhacaanay micnaha inaan doorasho xur ah oo qof iyo cod la gaaro oo anaga aan micnaha qofkii dibadda jira xataa uu coday karo qofkii dalka joogana asagana kaarkiisa uu ku coday doona aan gaari doona insha Allah biidnillaahi alkariim Soomaaliyana ay ku soo laabato Soomaaliyeedii horeente oo Lion of Africa insha Allah biidnillaahi alkariim waa gaari doona haddii ilaahay raali ka noqdo because anaga young generation markaan ahayn wallahi aad iyo aad dhibaato iyo qax iyo rafaad iyo dhibaato aad u badan aan soo marnay waxa anaga aan micnaha hamiga hadda maanta u noo haya waxay tahay yacni ilmaha anaga aan dhalnay inay micnaha ayagana tii anaga aan soo marno kaleenta aysan soo marin insha Allah taasa aniga micnaha madaxweyne aan ku rajeynaynaa inaad adigana micnaha aad si fiican dadaalkaaga ilaahay juhdiga ilaahay iyo aqliga iyo cilmiga ilaahay oo ku siiyay aad ku bixiso insha Allah biidnillaahi alkariim sida aan ku gaari lahayn horumar iyo dalkeena wax loogu qabto madaxweyne waxaan ka rabnaa haddii ilaahay yiraahdo ummadda Soomaaliyeed inaad cadaalad u noqoto oo kii qaldan iyo kii saxanba micnaha kii qaldanna aqalkiisa ku qaado kii saxanna aad saxitaankiisa iyo yacni ku tixgeliso oo wax xaqooda u kala sinto oo midna ala micnaha kii naga bixiyo qabiil iyo qabyaalad iyo qurun naga saaro inuu ilaahay ka dhigo ummadda Soomaaliyeed midka isku xiriirina ilaahay ka dhiga ayaa naga rajadeena tahay madaxweyne
waa kugu rajo weynahay. midda aan kaaga rajo weynahayna waxa waaye ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto inaa mideyso. anaga aad iyo aad aan ugu faraxsanay inaa mideyso oo aad u kala midab duwanaanin oo aad u kala midab soocin oo aad u kala qabiiliyin. waxaad noo doortay ra-iisul wasaarahaas aad noo doortayna inaad ilaahay waxaan kaa baryaynaa inuu ilaahay asagana nooga dhigo kii dadkiisa iyo diintiisa iyo dalkiisaba anfaco iyo dadkiisaba anfaco. ilaahay inuu asagana nooga dhigo. waxaan halkan ugu hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha cusub. halkan waxaan kaaga dirayaa farxad iyo bogaadin aan kuu soo mariyay hawada. ilaahay inuu ra-iisul wasaarihii horeento oo kaleente ninkii la yidhaahdo xasan baalkii la yidhaahda Roble maxamed xuseen Roble inuu ilaahay asagoo kaleente kaa dhigo. wallaahi been idiima sheegayo, Roble aniga aad iyo aada ula dhacay waxyaabaha uu sameeyey intii yar uu wadanka uu joogay oo ra-iisul wasaare uu hayay. wallaahi ani nina aad u jeclaysto noqday. marka insha Allah biidnillahi alkariim amarka ilaahay baa wax ku dhacaan. laakiin ani waxaan u rajeynayaa insha Allah the next 4 years oo ka dambe haddii ilaahay yiraahdo next madaxweyne inuu ilaahay nooga dhigo asaga sida uu dalka inta yarta uu hayo oo horumarka noo gaarsiiyey inta kalentana asagana uu noo sii dhammaystiro madaxweyne noo noqdo insha Allah. aniga waa hamigeyga waana ra'yigeyga. ciddii igu taageerto iyo cidda igu taageerin ayada u taala. laakiin aniga ahanteyda ciddii wax kale ka tabanaysa anuu ma garanaa. laakiin aniga ra'yi ahanteyda ka hadlay ninkaas aad iyo aad uu ila fiicnaa inta uu ra-iisul wasaaraha xilka hayay. ummadda mucaaradkaana waa iska jiraan. aniguna kuleeto aniga maxaafidaan ahay oo dowlad kama soo horjeesana. waxaan idin dhihi lahaa yani insha Allah the next 4 years haddii ilaahay yiraahdo asagan ilaahay insha Allah ilaahay ha nooga dhigo. ra-iisul wasaaraha cusubna waxaan leeyahay wasiirada aad soo dhisaysid aqoon iyo akhlaaq iyo diin ku raadi insha Allah biidnillahi. kan talada koobaad aan ku siinayo waxay tahay inaad qabiil ku raadinin wasiirada aad dooran doontid. inaad ku raadinin wax lacaga aad qof uga qaadato. inaad ku raadinin ilaahay aan kugu dhaarinaynaa inaad aqligaas noo sameyso oo aad noo midib takorin aad noo kala duwin. يعني hebel in hebel anoo ixiga in hebel anoo ixiga aad noo bilaabin oo nin kastaba aqoonti iyo cilmiga uu leeyahay meeshaas ku keenta aniga macnaha ilaahay aqligaas kugu duwan ku dhihi lahaa sida ay cadaalad aan u helno ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay kugu farxaan oo annagana aan horumar u gaarin oo awlaadeen ay farxad u helaan oo ay horumar u gaaraan oo dalkeena ugu soo laabano oo wax u qabsano dalkeena because annaga waxaan ku wada noolnahay qurbaha waxaan noo keenay dhibaatada dalka ay taagneed oo jirtay oo ka soo cararnay awdigeed sida aan waxaas uga bogaadin lahayn oo uga fiicnaan lahayn oo uga horumar lahayn. ra-iisul wasaaraha cusub waxaan halkaas ugu aqli celinayaa intii tabarteeda aan ka dhihi lahaa aqoon iyo diin qofkii leh oo meeshaas uu ka bixi karaa isleedahay ha u aaba yeelin wax qabiilna ha u fiirinin ra-iisul wasaare inaad saas noogu soo xesho wasiirada cusub aad magacaabi doonto haddii ilaahay raalli ka noqdo midkii shaqadaas qaba karo oo isleedahay xilka aa u dhiibto oo u magacaawdo uu qaba karaan oo aqoontiisan u leh meeshaas ku keento baan aniga ku rajeynayaa oo aysan noqonin mid qabiil aysan noqonin mid macnaha waayii dambe waxaan aniga dareemayay in lacag macnaha dadku intaas aniga ra-iisul wasaare baalka wasiir iyo dhawaaqay kan isi jagadaas bilow aniga ku fiican iyo aniga saan waxaasi ka bax inaad runta sheegto oo qof kastaba aqoonta uu leeyahay meeshaas waa kitaabad martay ummadda Soomaaliyeed oo dhaaratay annaga inkastoo aan meesha aan joogin laakiin TV-ga aan ka fiirsanaynay waxaad Soomaali horteeda ugu dhaaranaysa oo daysa wallaahi oo billaahi oo tallaahi iisa ka noqon wax ciyaara wallaahi daas waxaad ku galgad aakhirana ayada ku ah ajana ayada ku noqonaysa haddii aad daacad ugu shaqeyso haddii aad been iyo dulun aad ugu shaqeysana ayada naar ku noqonayso oo ilaahay la og yahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtana dhaartaas ballan qaaday ballantaas aad hortooda ka ballan qaadaysana ilaahay waa kula xisaabtami doonaa insha Allah biidnillahi alkariim anina waan ku duceynayaa waxaan ku leeyahay ilaahay xaq ha ku tusiyo oo aqoonta adiga haddii aqoonta aad leedahay ku amal fasho oo xaq ugu istaagto aad ugu dirto ummadda Soomaaliyeed xaq adiga aad leedahay ugu dirto ilaahay adigana xaqaaga macnaha waa kugu diri doonaa insha Allah biidnillahi alkariim ra-iisul wasaare waxaan ku leeyahay hambalyo soo dhawaaw wadankana adiga aabi iyo hooye adiga Xasan Sheekh adiga oo hogaamiye u ah sida aad awlaad idin sugaysa miro dhalka kan ka dambeeyo janaa soo koraay hadda soo koraay
xilka uu kaala wareegi doono, akhlaaqda uu sameyn doono mid adi aa fashay oo samaysay wadadeeda furtay waa inuu noqdaa. Haddii wada fiican adiga aa samayso, kan dambena wuxuu raacayaa wadada dambe oo adiga aa fashay. mudan ra-iisul wasaare, akhlaaqdu waa shay muhiim ah oo diintana ku salaysan. Marka insha allah biidni illahi alkariim, ilaahay xaqa ha ku waafajiyo oo ha ku tusiyo midda diinta ah iyo midda aqoonta adiga aad leedahay, sida aad dalka wax ugu qaban lahayd insha allah biidni illahi alkariim. ra-iisul wasaare, wasiirada aad soo magacaaweysay sidaasaa kaa dhihi lahaa, waana ku hambaliyeynayaa. madaxweynahana caafimaad taamaa u rajeynayaa. ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaana waxaan leeyahay diintiina ku dhaga. ummadda soomaaliyeed meel walba aan joogaana waxaan leeyahay oo kaleente, ilaahay dhibka idin haya allah idinka dulqaado, waxa barakeysanna allah idin siido, awlaadiina baraka allah idinka dhigo insha allah biidni illahi alkariim. waa afhayeenkiinii galmudug, waa Shiine Cabdi Nuur oo idin leh. waa idin salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan. walaalahay waa idin salaamayaa. waxaan rajeynayaa inaad dowladdiina aa u duceysaan siday horumar noo gaarsiiso insha allah biidni illahi alkariim. ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo 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 hambalyo. waxaana inka codsanayaa oo kaleente inaad subscribe-ka, like-ta iyo share-ta ilmaadareyaalo dee iga soo dhisa. waa afhayeenkiinii galmudug, waa Shiine Cabdi Nuur. janaalkaygana waa Shiine Cabdi baa ku qoran youtube-ka. haddii tiktok-ka aad tagtana waa Shiine Cabdi, waa 573 tiktok-ga dhexdiisa haddaa ku dhufato profile-kayga, haddaa ku dhufato youtube-ka waa ka dhex baalkayga waa ku dhex dhufa kartaa. youtube-ka waa ka arkaysaa, asaa toos kuu geynaa. subscribe-ka, like-ta, share-ka soo saar. saasaan idinka rajeynayaa. waa wiilkiinii afhayeenkiinii reer galmudug. waa idin salaamayaa. gobonimo galmudug, mudug, dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waa idin salaamayaa. waa wiilkiinii sharp isoo saara subscribe-kana. iga daaya cayaarta ilmaadireeda. waa wiilkiinii idin jeclaaye, sidaan idin jeclaa ii jeclaada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa idin salaamayaa dhammaantiinna walaalahayga soomaaliyeed. caafimaad iyo cimri dheer. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.